madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed aad iyo aad ugu mahadsan tahay in waraysigan aad naga ogolaato telefishinka Universal. Su'aasha ugu horeysa ee aan doonayay inaan ku weydiiyo waxa weeye kulankii shalay ka dhacay magaalada Brussels oo European Union ku ay soo qabanqaabiyeen natiijadii ka soo baxday sida ay idinku codtay. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. natiijadan waxay ahayd natiijo runtii aad iyo aad u wanaagsan iyo diiro badan la gelisay. waxaan ku qanacnay in maanta international community aragtidooda ku aadna Soomaaliya ay fiican tahay, fursad Soomaaliya ka faa'iideysan karto ay jirto. taas maxaa sababay bay kula tahay ma in dawladda uu garab la siiyo mise duruufo kala jira sida ay qorayeen? طبعا 18 sano oo fudud ay dhibaato waxa laga yaabaa in aan aad uga fikir dhibaatada ka imaan karta Soomaaliya, laakiin sanadihii ugu dambeeyay iyo waxyaabo fara badan oo dhacay iyo arrimahan quraacda dalada laftigooda waxaan moodaa inay aragtidii adduunka wax badan ka bedelaan. lacagaha marka lagu ballan qaaday oo 213 milyan ah horraantoodu goorma laga yaabaa inay soo gaadho? waxaan rajaynayaa in ugu badnaan 2 usbuuc soo socota ay wax bilaabi karaan, aysan kolba mar muuqda imaan laakiin inay wax bilaabi karaan. muddadii dawladda samaysay waxa laga joogaa 2 bilood iminka ma sababtaas aad ugu wacan in waftiye badan oo adigu hogaaminaysay ama wasiiro kale ay hogaaminayeen ay dabadaha marayeen si dhaqaale loo helo hawshii loo dhaqaajiyo? dawladdan waxay u baahan tahay Soomaaliyeed in shaqo badan gudaha ka qabato, shaqo badan ay dibadda ka qabato. maxaa yeelay aqoonsiga dibadda iyo taageerada dibadda dawladda waxay u tahay muhiim, isla markaasna waa in shaqo u dhiganta ay gudaha ka socoto. marka labada shaqaba waa socdaan, baarlamaankii gudoomiyihii baarlamaanka xigeenadiisii golihii wasiirada ra'iisul wasaarihii dhammaan waxay wada joogaan dalka gudihiisa. hawl fiican ayaa ka socota. annagana waxaa ogtahay inaan ka nimid dalkii gudihiisii, marka in labada shaqaba la isku wada si dheelitiran taas ayay tahay istaraatiijiyada dowladda. sababta su-aashaan ku weydiinayay mudane madaxweyne waxa weeye dadka qaarkood ayaa qaba in ilaa imika laga yara gaabiyo hawsha gudaha oo loo baahnaa in gobollada la soo maro oo dadkii la gaadho oo loo tago oo la isu soo dumo. fikradda saas adiga macquul ma kuugu muuqataa? Soomaalidu waa iska dhaliil badan yihiin, laakiin dawladda muddadii koobnada ee jirtay runtii waxba lama harin. gaar badanaa socday, saacado badanaa la shaqaynayay, natiijo fiican waa ka soo baxay filaanaha. ta gudaha waynu kusoo noqon doonaa, laakiin ta dabadda haddii su-aal kale aan kaa weydiiyo maanta markaad magaalada Brussels kula hadlaysay dadka jaaliyadda Soomaalida Yurub ku dhaqan oo qaar fara badan khudbadaada ay dhegeysanayeen, hadalkaaga waxaa ka muuqday saluug jaamacadda carabta aad u soo jeedinaysay oo dhowaan shirkii ka dhacay magaalada Dooxa ee hogaamiyaasha aad ka qayb gashay. saluuggaasi muxuu ku saabsan yahay? abadan saluug ma aha, laakiin waxaan ka hadlaynay ظروفها jira iyo sida loo baahan yahay Soomaalidu inay u fikirto. yani مثلا anaga haddaan Soomaali nahay waxaa laga yaabaa inaan albaabada qaarkood aan xirno anagoo ka fikirin masaalixda aan ka gaari karno meelaha qaar. albaabada qaar inaan qaracno anagoo diinteena iyo dhaqankeena iyo dowladnimadeena iyo sharafkeena aan ku xadgudbaynin. marka tan aan ka hadlahay taas kaliya yani kalimaad inaan nagula isticmaalin oo aan ka fikirno maxaadan oo ummadan. dhinaca kaalmada dhaqaale ee jaamacadda carabta ballanqaadkeeda ka hesheen ma ku qanacsantii? ballanqaad oo toos ah oo jaamacadda carabta ma jiro. waxay soo jeediyeen 3 milyan inay bishii bixinayaan muddo 6 bilooda. shuruud ay ku xireen. waxaan u sheegnay markaa in arrintaas aysan dabooleynin baahidii aan qabnay ay aad uga hooseyso rajadii aan ka qabnay inay dowladaha carabtana gacan siiyaan. sidaas oo kale waxyaabaha sidaas oo kale oo la yabo oo shuruudda lagu xiro lama arko. marka waxaa noo soo baxday in magac naga raacayo aanan meeshaas wax kaalmo aanan ka heli doonin, laakiin haddana dadaal badan oo socda in
dib ay isugu laabtaan oo dib ay u muraajaciyaan oo Soomaaliya wax u taran. laakiin mudane madaxweyne wadamada jaamacadda carabta qaarkood sida Sacuudi Arabiya oo kale markii kaalmada dhaqaale shalay wadamada caalamku ururinayeen lacag fara badan oo ilaa 18 milyan ayay ku dhawaaqeen wadamo kale oo carbeed oo sidaas oo kale yeelay oo kaalmadii dhaqaale wax ku biiriyay ma jiraan. ما حسست أنت أنا حسست هذا والسعودية دولة عرب وحاليا مرة قال يعني كرويين سيدا سوق يعني دولة استبقنا عدد يعني وحكوا بحسهم وأردتها إن جامعة عربتها وحلوصة أروي يعني أردتها. الوطن مركا ينوصل نقولنا رمها جده واحد مدة حالكو إنه سيدي هرونسكي مركا دين عنا بتقليد الله يعني إن كستو طبعا أنا والله مدهين sidii jirtay waqtigii ciidamada Ethiopia ay joogeen oo kale laakiin kala qoqobnaantii iyo dagaaladii iyo dadkii la leynayay inay sidoodii yihiin maxay isbedelay baad oran lahayd muddadii dawladda ay jirtay. waxa isbedelay waxa la socota Soomaalida markii ugu dambeeyay magac dawladeed oo dhanba inay la diriraan ayaa mudda fikrada inay qaateen in badan oo kamid ah muddadii koobnada aan joognay waxaan aad uga shaqeynayay in aan dadka ka dhaadhicin war dalkan dhibaatada haysata waxa asaas u ah dawlad la'aan dawladana waxa lagu qiimeynayo magaca ma ah waa wax qabadkeeda dawladana waxay diyaar u tahay inay wax qabato dawladana waxay diyaar u tahay inay shacabkii wixii ay ku caawin karto ay ku caawiso inay shacabkii kaashato marka waxa aan sugaynana waxay ahaayeen in qabuul ama rabitaanka dadka kor loo qaado oo dawladnimo leen dawlad kale waxa uu qaban karto garan karta shacabka loo baahan yahay iyo barnaamijka wada hadallada laftigooda aan aad ugu dadaalayna iyo arrimaha diyaarinta ciidamadii dawladda oo amniga sugnaha. laakiin mudane madaxweyne marka la eegto xaqaa'iqda ka jira gudaha dalka Soomaaliya khaasatan kooxahan dhinaca diinta ku abtirsanaya iyagu ma waxa weeye mucaaradad dawladda ay kaga soo jeedaan mise waa arrimo meel kale ka socdo dibadda wada oranay wax badan isbedel laftigooda qofka banaanka ka fiirinayo waxa laga yaabaa inuusan aad u ogaa karin laakiin runtii muddadii koobnada dawladdu joogtay ama mucaarad ama dadka Soomaalida oo dalka jooga wax badan isbedelay طبعا دولة بدن dad badan oo aan daneynin Soomaaliya inay degto way jiraan wadan oo arka Soomaaliya inay fowdo si ahaato laakiin hadda mas'uuliyadda toosta waxay saaran dadka Soomaaliyeed haddii ba diyaar u yahay in dowr fiican ala qaat oo dawladda ay ka qayb gashay sabab ah wax u dishay ma jiro arrimahan cusub oo dadka gaadmada oo dadka muhiimka la dilaayeen waa dadka ay soo socdeen waa intii arrimaha ugu khatarsan oo Soomaaliya ka jira waxayna u baahan yihiin dadaal ay iska kaashadaan dawladda iyo dadka Soomaaliya waxa jira baa tiri mudane madaxweyne dad iyo dawladaha doonayay Soomaaliya ay degto tusaale ahaan ma ka bixin karaysa dawladdu ku ay maadaama hadda anaga nabad aan raadinayno waxaan u maleynayaa inaysan habboonayn in aan dhahno dawladda ayaa waftaaga nabadda Soomaaliya ma dadku in badan oo kamid ah ay